leeyahay ninka asaga wuxuu ahaa waa eedaysana dad badan buu dhameeyay degmada Tiyeglow ilaa 12 qof bay ciidankiisa ku dileen oo haddii la rabo ha loo saaro guddi xaqiiq raadina oo tagto degmada Tiyeglow waxa uu ku sameeyay iyo ciidamadii soo weeraray Mahdaay ayuu ku jiray gawaaridii xooga dalka Soomaaliyeed oo Mahdaay laga qabsaday Tiyeglow ay yaalaan ciidankiisa haysto ninkaas haddii magnow la siiyo haddii la yiraahdo arrintiisa laga hadlo shacabka uu dartiisa loo gumaado mas'uuliyad uu gumaadino waa in laga hadlaa baarlamaanka uu ka hadlaa lana keenaa muxuu ah meeshan oo laga hadlaa waay haddii kale ahayn waxaan u arkaa arrin siyaasad laga wato shacabka Soomaaliyeed amni buu u baahan yahay waxa la waxa ciidamada shisheeye maxaa u keensan anaga waxaan u keensan nimanka qawaajin ugu soo dhaxay inaga qabtaan waa in ninkaas wuxuu ahaa kuwa aan raadinayno oo la dilay aada ceerow iyo muxuu ahaa Abu Mansuur iyo ayuu la mid yahay kuwaas la mid ahaa ani waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay haddama kuwaas loo qeylinayno oo laga hadlin asagna laga ma hadli karo kuwaas la mid ahaa waxaan cadaynayaa inaan taageersanahay go'aankii iyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada mudane gudoomiye mudanayaal heshiiskii ay xukuumadda gashay wuxuu ahaa xukuumadda sideedaba heshiis way geli kartaa xukuumadda markaan halkaan ka ansixinay waxaan u wakiilanay in ay shaqadeeda si hufan u gudato meesha la yiraahdo jigjiga waad aragteen daamanka iyo biyaha iyo khayraadka u burqanayo waad aragteen ma qof burburinahan gabaad siinayna waa maya xilibaan runtaan u soo sheegno Jabuuti mucaaradkeeda miyaan gabaad siinayna ilaa shantaas xidig ay kamid ahayd maya annaga maanta na caawinayeen annaga maanta u baahan ciidamadoodii ay cadawga caawinayaan aan dhabta ka hadalno mudane gudoomiye dad baa waxa mar walba dhahaaya oo mar walba soo qaadaya muslimnimada meel looga dhacay xuquuqda aadanaha meel looga dhacay xuquuqda aadanaha uma soo degin qof hubaysan oo dad laynayo oo xasuuqay yaa waaya argagaxisa waxa qofkii hubaysan ayaa argagaxisa oo dad laynay haddaan adduunkii ka harnay oo aanan waxba haysanin oo caruurteennii bannaanka ay daadsan yihiin oo ilmaheennii shabaab noqdeen oo waxbarasho aynaan haysanin in maanta qarankii loo dumiyo shakhsi ani waa ka soo horjeedaa yaanaan waxba hoos loo baarbaarin aan waxaan isku hurhuursanno kii la qabtay sidii loo xallin lahaa aan qabanno anigu waxaan leeyahay qaranka Soomaaliyeed ha loo shaqeeyo waa dhibaataysannahay shanta waan raadinay waa soo weynay ma dhihi karno waan dhisnay dib yaan waxba loo celin shaqaa noo taala waxa buugna loo dhiibay maanta markaysay war shaqo badan baa noo taale aan codayno oo halka ha lagu xiro bahash ninkaasna xal mastuur ha la galo dadka ha loo wada hadlo dad baan intii la iska dilaa la wada hadlaayo gogol la dhigtaa wili halkii Soomaaliya dhaqankii Soomaaliya waa leenahay dhaqan Soomaaliya hal aan galno annaga ma aanan dhihin dawladda ma aysan dhihin waa onelef waa shabaab iyo ma oran madaxweynaheena Xasan Sheekh ayaa yiri wuxuu yiri onelef waxay la mid tahay shabaab kulligiina waa wada daawateen marka xukuumadii hore ayay qaadan lahayd maba ay dhihin qodobka hadda akhriseen waxay xukuumadda soo saartay kuumada jirtaba